waxaa la guddoonsiinayaa biladda geesiga oo uu ku mutaystay kadib markii uu daad ka badbaadiyey 30kii bishii Abriil ee sanadkan hooyo iyo 2 carruur ah oo ay dhashay kuwaasi oo deganaa balliga Quracdheer ee magaalada Hargeysa. Cabdiqani oo haatan loo bixiyey Cabdishakuur Geesi waxa uu halis u geliyey naftiisa si uu nafo kale u badbaadiyo biyihii faraha badnaa ee dooxa iyo balliga dhexdiisa qulqulayay ayaana uu isku tuuray Cabdiqani si uu u badbaadiyo hooyo Raxmo iyo 4 carruur ah oo ay dhashay. hase ahaatee 2 ka mid ah carruurtaasi daadkii ayaa qaatay oo waa ay geeriyoodeen halka 2dii kale qofka sabab u noqday in ay badbaadaan uu ahaa Cabdiqani. koox wariyaal ah oo ku sugan waddanka Norway ayaa Cabdiqani ku abaalmariyey biladda geesiga waxaana lagu hor guddoonsiiyey biladaasi 100 ka mid ah ardayda iskuulkiisa. Maxamed Xasan Dirir oo wakiil ka ah wariyaasha Norway ayaana Cabdiqani guddoonsiiyey biladda geesiga. waxaanu bilad geesi halkan ku guddoonsiinay aanu ugu talagalnay Cabdiqani inaanu ku abaalmarino arrintaas aniguna wakiil baan ka ahaa maamulka iskuulka Quracdheer runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa iyaguna garab fiican nagu siiyay hawshaas inay qabsoonto waad arkayseen Cabdiqani sida quruxda badneed ee ugu farxay waxa kale oo iyaduna wehelinaysay hooyadii isaga dhashay oo runtii ay guul weyn u tahay in midhaheedii ay tallaabada noocaas uu qaado. Cabdiqani Xuseen Xasan oo ah arday 16 jir ah isla markaana dhigta fasalka 6aad ee dugsiga hoose dhexe ee Quracdheer ayaa waxa maamulka iskuulka Quracdheer ay noo sheegeen in ay ugu deeqeen waxbarasho bilaash ah kadib markii ay maqleen sheekadiisa. Raxmo Yuusuf Muuse waa hooyada uu Cabdiqani ka badbaadiyey daadka iyada iyo carruurteeda waxa weli ka sii muuqda dhaawacyadii uu gaarsiiyey daadku iyada oo ilkaha qaarkood ay kaba daateen. hadduu Cabdiqani halkaa joogin oo biyahaas ku soo dhex turiyeen meesha jooginba mabaana noolaaneenba asagana soo badbaadiyey oo naftiisii u huray oo tiisiisa xitaa sigatayba. may ahayn wax uu filayay Cabdiqani Xuseen Xasan in lagu abaal marin doono biladda geesiga hase ahaatee markii la guddoonsiiyey waxa uu noo sheegay in ay arrintani u tahay mid sii dhiirigelin doonta. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama bilad laygu siiyey layguna sharfay abaalmarinna lay siiyey niyad dhis ayay ii tahay aniga Cabdiqani ahaan dhalinyarada aniga oo kale ah ee joogta waddanka gudihiisa iyaguna niyad dhis ayay u tahay maadaama ay dalkooda iyo dadkooda difaacayaan aniguna aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama aan nafa badbaadiyey waana wax uu Ilaahay soo diray oo maaha maanta wax waa la isku leeyahay waxaas dad Soomaali oo walaala ayaynu nahay. waa halkan oo ah balliga Quracdheer ee magaalada Hargeysa goobta ay ka bilaabmatay sheekada Cabdi Geesi isla markaana uu ku badbaadiyey 2 carruur ah iyo hooyadood oo xilligaasi halkan ay qulqulayeen biyo badan oo roob markaasi ka da'ay magaalada Hargeysa waxaana uu Cabdi noo sheegay in ay tahay arrintani shaqadii ugu fiicneed ee uu abid qabto. Khalid Fodadi Goobjoog Hargeysa.